بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قرب كله ونكسن وأن لفظ إن حضرة الشيخ دكتور الشيخ محمود الشيخ علي الجيزاني علي مركله قلب كله ونكسن وأن لفظ إن حضرة الشيخ دكتور الشيخ محمود شيخ علي الجيزاني أنتي nala socota sida joogtada nala socota waad garanaysaan inta nala socono deemika bakarta sheekha waxaan weydiinaynaa su'aasha ugu horeysa isagii hawlo badan oo la xiriira dacwada islaamka iyo kutubtii iyo qoraalkii kutubta iyo de hawlo kale oo badan oo runtii u baahan in la xuso maadaama ay jiraan qaar kale oo badan oo laga yaabo inay waxba qaban amba ay dhici karto inaanay waxba soo kordhin inta la xusayo marka in cilmiga si gooni loo xuso oo aynu garanno tani nagu leeyihiin amba tanay tahay inaynu runtii daafuro amba aynu soo bandhigno waxaad moodaa inay tahay biyo kama dhibcaan iyo lama huraan marka Dr. Sheekh Maxamuud Cali Al-Jizaani kan waa kitaabkiisa ugu dambeeyay aadaab al-lisaan kitaabkii ugu dambeeyay uu sameeyay marka waxaanu weydiinaynaa sheekha iyadoo tababadan ay jiraan oo loo gudbiyo cilmiga sida nugtiin subhanahu sallallahu alayhi wasallam waa maalintii uu inooga tagayay tii la xiriiday dacwada fidinteeda iyo dadkii loo sheegay wax wanaagsan waa tuulaha ballad wacni walaw ay waraayad baa Allah ka dhigay wuxuuna gaarsiiyay dadkii kolkuu lahaa marka dariiqad ka duwan dariiqadii hore wax loo sameyn jiray amba dariiqad inta badan dadku ay loobeen ayuu wadaadku soo kordhiyay naxariis Allah siiyay oo ah in uu qoro oo gacantiisa ku qoro si markaa uu noqoto markuu adduunkan ka tagana mid uu ku anfaco intuu joogana de uu noqdo cilmi laga faa'iideysto laga barto marka sheekha waxaan leeyahay weydiinaya sheekh دكتور الشيخ محمود علي دكتور الشيخ محمود الشيخ علي الجيزاني بل سيرو كوبن عرف شخصيتك الشيخ جيزاني وأيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أما بعد مركو الرساني وحان أهي ولكن محمود الشيخ علي حسافين oo loo yaqaan Dr. Jazani waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay su'aasha in la su'aalo garatay yani aniga la su'aalo maanta baa garoonkaga sida aan ahay waxaan maartay aad iyo aad maartay ugu jeedinaya mahad Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku saleenaa nabiga Muhammad alayhi salatu wasalaam waxaan mahadsan thumma bacda dalka waxaan mahadsan Dr. علمي ليث شريف أو سؤالها إيجا قاعد هاي ويدين هاي مواضيع داس يولالك أنا أستاذ يعني كاميرا مانكا أستاذ عبد القادر حاجي أدي أمها سيهين أنا جوحنا هاي سيد إنسان الشيخ محمد شعال حسفين أو اللي يقرأ دكتور جازاني وحبر الشيء دي وحي هيدا أنكسوا باللاوي صوماليا باديها مذوق أيان أحنا كأهان أرضي يعني هي قرآنك القرآن كما كان دمي الحمد لله رب العالمين وحن كبيرة حق وحبرشة دينته أيام كبيرة وحبرشة دي إن شاء الله تعالى مشايخ بدن بان أيام لها أو ترى بدن وأنا كحسي قرار الله شيخ أو واوين شيخ يجي شيخ على علم يري أو مارتي علم عن كسبرتي أنتي مارتي أحكامته الشيخ محمد عثمان دقولي وأسرع عن الشيخ يجا علم أنتو بان كبرتي وأسرع عن لجوجي مشايخ ترى بدن أو عن حساب عن لهين أيام وحكسبرتي oo cilmiga maartay liira kitabaha fiqhiga manhajka iyo maartay bijayreemiga iyo maartay shaab shajaaca iyo safiinaha iyo kitabaha ahkaamta ay akhyaarta ayaan ka soo bartay ka bacdina kitabaha kale oo maartay sarfiga iyo naxwaha iyo ayagana ma sha Allah mashaayikhdaas ayaa ka soo bartay culimadayda oo ku jira midug gaalkacayo ka bacdi waxaan soo wareegay meesha liyaada xamar culimo maartay mashaayikh tira badan ayaan la kulmay oo ay kamid yihiin مثلا Sheekh Xuseen Cadi Sheekh Liiraahday iyo Sheekh Ibrahim maartay iyo akhyaar tira badan iyo Sheekh Abdulrahman Sarfile iyo akhyaar tira badan iyo Sheekh maartay Sheekh Al-Baruudi iyo mashaayikh tira badan aan wax ka akhristay ayaa jira markaas oo cilmiga naxwaha ugu yaraan alfiyaha aan ka akhristay marka ka bacdi markaan culumtaas aan akhristay ka bacdi waxaan u haajiray Sacuudiga Xijaaz ayaan tagay Makkah al-Mukarrama gaar ahaan meeshaas ayaan waxaan ka galay jaamacad Qura jaamacad liiraahdo yani Qura sharafaha Allah ilaha sharife jaamacadaas waxaan galay markii hore معهد أيام قلي معهد كلا وحان جينا هي لبسنا معهد الغير الناطقين بها اللغة العربية ده كله باقين معهد كلا أيام قلي
macadkaas ayaan ka baxay kabacdina jaamacadda qura ayaan galay jaamacaddaas waxaan dhiganahay 4 sano 4 sano marka jaamacadda ayaan ka baxay kabacdi waxaan tagay Yemen 9 sano ayaan macallin ka ahaa halkaas waxaa la ii qaatay inaan macallin noqdo kabacdi waxaan soo wareegay Mareykanka ayaan soo wareegay America ma soo wareegay waxaan ku biiray jaamacad la yiraahdo jaamacatu Freemarty American Open University oo jaamacadda islaamiyada المفتوحة جامعة الأمريكية المفتوحة أو كنت الفرجينية أيام كبيري وحن كقاطي شهادة ماجستير كلي هذا كبعدي أنا وحن ما ارتقاطي جامعة شهادة دكتوراه وحن كقاطي جامعة الإسلامية في منصورة مركا وحبر الشهادة الحمد لله رب العالمين سداسي هاي يعني يعني نلا شيء ده بالله وجده لما كده حق وحبر الشهادة يساسي إن شاء الله تعالى. دكتور شيخ محمود شيخ علي الجيزاني mudnaan gaar ayaad leedahay sidaad noogaga warantay waxbarashadaadii iyo labada beer koo dhimanin aqoontaadii halkaad kasoo waardaan baad kala kulantay haddii markaa aan in yar ku daro oo aan isla yaaleed muhiim bay u ahaan lahayd iminka markaynu halkan joogno aan baynu ka hadlayno halkan xadaradan ka hadlayno waxaan oran lahaa aan jeclaan lahaa inaan ku daro in yaroo kamida camalkaagii khayriga ahaa ee dacwada la xiriiray iyo halkii uu ku sal lahaa maadaama inta min xilligaad maka ka baxday ilaa maanta aad haysay amba aad ku taagnay dariiqa dheere laga yaabo inuu qodxaa lahaa amba ay dhibaatay waqti badan adag aad la kulantay marka bal taa noogu dar dacwadaadii heerkii iyo halkaad soo martay dariiq siduu ahaa. بسم الله الرحمن الرحيم جواب سؤال دكتور علمي وسؤالي marka camalkaaga dacwiga مثلا waxa weeyaan runta markii aan wax bartay oo ardayga aan ahaa alxamdulillah rabbil alamin kuma aan deyn sidaas waxaan bilaabay aniguna in aan arday wax u akhriyo waxaan ka bilaabay kitaabka safiinu salaadka safiinu najaha kitaabka leeyahay manhajka oo imaam an-nawawi yahya ibn sharaf an-nawawi oo iska lahaa in aan akhriyo alxamdulillah rabbil alamin waxaan ka akhri jiray masaajid ku taala meesha leeyahay xamar ayaan ka akhri jiray oo markii hore aan wax ku akhristay waxaan kaloo aan akhrin jiray kitaabka sarfiga ah oo masjidka maartay masjid rahma la yiraahdo oo ku yaala Wardhigley ayaan maartay ku akhrin jiray meesha banaanka ah ayaan ku akhrin jiray kitaabkaas marka meel laga fiirin maayo asagoo qaacidaha ayaan ka xiriirinay markaas aan akhrin jiray alxamdulillah rabbil alamin kitaabahan aan akhrin jiray oo maartay camalka dacwiga kamida waxa kamida kitaabka lixdan naxwaha oo maartay ajruumiga ayaa kamida kitaabahaas maartay manhajka markii waxaan lahaa maartay alfiyaha ibn malik aan oran lahaa xagga naxwaha markii culumtaas alxamdulillah rabbil alamin ayaan akhrin jiray kabacdi markii aan imid wadankan aan joogo intaan wadankan aan iman oo Yemen aan joogay oo aan macalinka aan ahaa iyadana sidoo kale kitaabahaas waan akhrin jiray wadankan markaa imid hadda aan imidna hadda alxamdulillah rabbil alamin masaajidkana masjid Abu Bakar oo ku yaala register ku yaala laga soo bilaabo 2002 laga soo bilaabo ilaa hadda oo 2021 يعني 2002 laga soo bilaabo ilaa 2021 ayaan waxaan maartay hadda laga soo gaaray ayaan waxaan ku akhrin jiray kitaabaha ayaan ku akhrin jiray noocyal oo muxtalifa kitaabaha oo dhan yani funuunta ayaan ku akhrin jiray alxamdulillah rabbil alamin xaga wax akhrinta sidaas weeye ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda anigana ilaahay ugu maanta qiyaamaha ajir xasanaadkayga maartay ku miisaam ku badiyo ummadana ilaahay inuu ku anfaco ayaa ilaahay ka baryaa subhanahu wa ta'ala